بسم الله الرحمن الرحيم. walaalkayga khaaliga ahow iyo walaashayda khaaliyada ah meel walbo caalamka aad ka joogtid idageyso oo farintani aday kugu socotaaye ha iska gudbin oo cid kale ha ku tuurin. ibn Abbaas radiyallahu anhuma ayaa maalin wuxuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waaninaya nin wuxuuna ku yiri اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ودردارا إيوانك سعط قف والبو أمد محمد كمده إلى قيام الساعة. وحونا ku yiri nabiga ninkaasi ka faa'iideyso shan arimood oo noloshaada soo mara intaysan ku haleelin shan kale oo kula hari doona waa shan nicmo oo qiimo weyn ku leh nolosha bani aadamka oo Allah ugu deeqo ruux walba oo haddii aadan ka faa'iideysanin dib dambe u arkaynin ogow waxay kugu dhaafi doonaan sida habeenkii xalay oo tagay. ma soo celin kartaa xalay? waa su'aale jawaabtaasi adiga laga sugayaa. dardaaranka koowaad ka faa'iideyso dhalinyaronimadaada intaadan gaboobin ama aysan ku helin duqnimo oo fadhi ku dirir iyo dagaal qabyaalad aad ku cirowdo oo ku dufowdo adoo dulli ah. tamarta kugu jirtaa ha ku dhumin meel cidla ah ee ka faa'iideyso dadkaaga iyo dalkaaga u faa'iiday oo ha yaraysan wanaagga aad ummadda tari karto. mustaqbal fiican dhiso ood ku badbaado kuna liibaanto adduun iyo aakhiro. dardaaranka labaadna ka faa'iideyso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ama aysan jiro xun ku curyaaminin oo sariirta ku saarin oo dhaqaaqi kari weydo. caafimaadka intaad leedahay noqo ruux waxtar leh si aad u noqoto kuwa harka Allah geli doona. noqo shaabun nasha'a fii cibaadati illaah. ha sugin ilaa ay jiro xun ku soo weerarto oy ku dabargoyso markaasi maxay shalayta ku tari. dardaaranka saddexaad ka faa'iideyso ghaninimadaada ka hor inta aysan noloshaada daboolin faqri iyo saboolnimo. ogow lacagta waa wax yimaada haddana kaa taga oo ku dhaafa. lacagta ku soo marta ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah. ka qayb qaado quudinta masaakiinta, dhisid masaajid, ceel qodis, kafaala qaadid agoon, sadaqa bixinta badso. khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabbad timir ah oo aad sadaqaysato. dardaaranka afaraad ka faa'iideyso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor. ruux walba waxaa soo mara wakhti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu wakhtigaasi firaaqada ah kaga faa'iideysto wax manaafacaad leh oo nafsadeenna faa'iido u ah, ehelkeenna faa'iido u ah, dariskeenna faa'iido u ah, mujtamaca guud ahaanna faa'iido u ah. haddaba ma ka faa'iideysanaa wakhtiga? waa su'aale. oo maalin walba qur'aan ma akhrisaa wakhtiga firaaqada? diinta wakhti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay? ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xiriirisaa? dadka xanuunsan ma booqataa si adna laguu soo booqdo markaad xanuunsato? deriskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq deris kuguma leh? mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yidhaahdaanba si aadan ogayn oo buufis xan iyo warxumo tashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada. ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan. dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray. ka faa'iideyso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin. ogow qof walba waxaa soo marta cimri xadidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon, waad dhimanaysaa, waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga. godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn, aan dhaqaaqi karin. walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iideysta dardaaranka uu siiyey nebigan ku jecel oo raba inaad deriskiisa noqoto fil firdowsi alaclaa in shaa allah. maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale. haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay.